السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة شبكة عالمية سومالي فري وردك دقة وهذا كسر بحي دولة فدرال كصوماليا. دولة الصومالية وشواب كبحثي إيدي كينيا حدود بدة. دولة الصومالية صارت ورقة أنا كشوابين شن يرتبط قضب أي دولة كينيا سوقرتي أو مقدار وكلية مدلا ربما إن لجود شيء حسد كدلتي حراش كي علاش في ذلك ee dawladda Soomaaliya ku xaraashtay magaalada London bishan February 2019 dawladda Soomaaliya oo laga sugayay in ay jawaab ka bixiso ayaa waxa ay soo saartay warqad u muuqata in ay raali gelin ka bixinayso eedayntii ay soo jeedisay dawladda Kenya. warqadda ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa xambaarsan laba qodob oo kala ah raali gelin dadban oo la siinayo dawladda Kenya iyo iyadoo aan la cadeyn waxa laga raali gelinayo dawladda Kenya. dawladda qodobka labaad dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ogolaatay in soodinteeda tahay mid la isku haysto disputed area taasoo Kenya fursad u siin doonta in ay ku andacooto in Soomaaliya ay ogoshahay in dhulkaas yahay mid la isku hayo ama ay shaki gelinayso in dhulkaas aanay sheegan karin Soomaaliya. haddaba waxa ay u muuqataa jawaabta ay bixisay dawladda Soomaaliya mid lagu gobol xaarayo in isqabqabsiga dacwadda labada dal ayaa dawladda Soomaaliya ay ka soo dabacday halkii ay taagnay taasoo fursad siinaysa dawladda Kenya in ay la wareegto soodinta muranka ka taagan yahay ee Soomaaliya iyo Kenya. haddaba shabakada caalamiga ee Somali Free ayaa waxa ay wadaa baaritaan rasmi ah sida ay wuxuu dhaceen tan iyo markii uu ra'iisul wasaare Khayre booqasho ku tagay magaalada Nairobi halkaas oo uu kula kulmay madaxda ugu sareysa dalka Kenya iyo waxyaabihii laga wada hadlay. waxaa sidoo kale ku sugnaa magaalada Nairobi muddo ka badan 30 maalmood Fahad Yaasin kaasoo isaguna la kulmay madaxda ugu sareysa dawladda Kenya. waxaana idin soo gudbin doonaa wada hadallada ku saabsan arrinta kiiska badda ee labada mas'uul ay ka hadleen dawladda Soomaaliya iyo cidda ka dambaysa go'aanka ay shalay xiriirka diblomaasiyadeed ugu jirtay dawladda Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. markasta ku xidhnaada shabakada caalamiga ee Somali Free si aad ula socotaan wararka ugu xasaasisanaa ee ka soo cusboonaada xiriirka ay dawladda Kenya u jartay dawladda federaalka Soomaaliya. waa Ibrahim Saciid Maxamed shabakada caalamiga ee Somali Free xafiiskiisa magaalada Burco.